بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada idinkugu haynana waxa kamid ah hogaamiyaha sare ee Iran oo wacd ku maray inay u argudi doonaan dilka aabihiis iyo dadkii kale ee lagu dilay dagaaladii u dambeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Iran oo isna dhankiisa sheegay inaysan wax kalsooni ku qabin Mareykanka tani waxay ku soo aadeysaa iyadoo xiisadu cirka ay ku shareeran tahay inkastoo ay socdaan dadaalo dhanka diblomaasiyadda magaalada Masqad ee wadankaasi saldanada Cumaan ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin wafdi Iiraaniyiin ah oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda waxaana la qudareynayaa sidii loo ambaqaadi lahaa dadaalo lagu hortagayo dagaalku dib inuu u qarxo laakiin aqalka looga arrimayo wadanka Mareykanka ee aqalka cad ayaa waxa war ka soo baxay lagu sheegay in Mareykanku ay saluugsan yihiin heshiis in laga gaari karo barnaamijka nuclear-ka ee wadanka Iran ku dhawaad konton qof ayaa ku geeriyootay wadanka Bangladesh halkaasi oo roob mihigaan ah ay ka da'een boqolaal kun oo qof ayaa barakacay waxaana xaalad adag laga soo warinayaa dadkaasi nolosha ay ku sugan yihiin dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warah ee soo dhaca intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa dugsiga casriga ah ee Daarul Hijra Islamic Online waxa uu kugu bishaaranayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto Quraanka Kariimka higaada iyo culumta shareecada kama marna luqadda Carabiga iyo tarbiyada awlaada wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekiisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa laba dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxa uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda Sombay and Rent Property Finder sifihii mar hore saxariir ahaa iyo suuq fogaa laga samabaxayo Stirban ku haya waana Sombay and Rent Property Finder ma tahay qof doonaya inuu iibsado ama kireysto ama iska kireeyo guri ama dhul ma ku daashay raadinta meel lagu kalsoonaan karo oo si fudud ku gaarsiisa guriga aad rabto haddaba xalka waad haysataa maanta Sombay and Rent waa shirkad online-ka ama waxa loo yaqaano Property Finder oo isku xirta milkiilayaasha guryaha iyo dhulalka real estateska agencies-ka iyo dadka raadinaya guryaha ama dhulalka hoteelada ama furniture apartmentska ama guryaha qalabaysan waxaana dhammaan adeegaasi aad hal meel uga wada heli kartaa Soomaaliya Kenya Egypt Turkey UK USA iyo Saudi Arabia oo boqolaal qof ayaa hore uga faa'iideystay adeegan adiguna maanta ku biir oo booqo sombayandrent.com haddii aad tahay agency ama milkiile iska diiwaangeli website-ka ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda mahadsanidin maxamed Cadde oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei ayaa ballan qaaday in loo argudi doono dilka aabihii iyo dadkii kale ee ku geeriyooday weerarkii Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen dhulka wadanka Iran waa falcelintii ugu horeysay ee ka soo baxday wixii ka dambeeyay aaska aabihii Khamenei ayaa u mahad celiyay malaayiintii dadaha ay soo baxay ka qayb galay aaska aabihii wuxuuna ku tilmaamay soo baxooda inuu ahaa mid taariikhi ah calaamadna u yahay qaranka Iran inuu midaysan yahay waxa kale oo uu sheegay in dhiigii aabihii hogaamiyihii hore ee wadanka Iran Ali Khamenei iyo dadkii kale ee ku dhintay sida ay shacabku dalbadeen waa la meel marinayaa in ay loo argudo waana waajib in loo argudo waxa kale oo uu sheegay in taageerayaasha Iran meelo ka baxsan jooga ayaa ugu dambeyntii qaadan doona dadaalka ay ku ciqaabi doonaan dadka mas'uulka ka ah dilka hogaamiyaha ruuxiga hadalkan ayaa waxa uu daba socdaa aabihii markii warar xagga cirka ay ku dileen dagaalka bilowgiisii bishii February Mareykanka iyo Israa'iil
sida laga soo xiganayo dhinaca warbaahinta waddanka Iiraan ma jirto wax jawaab ah ka soo baxda dhanka Mareykanka iyo Israa'iil ee la xiriirta hadalkan ka soo baxay hogaamiyaha cusub ee waddanka Iiraan Khamenei. bayaankan ayaa waxaa laga yaabaa inuu walwal weyn ka keeno gobolka bariga dhexe oo colaadana ay cirkas ku shareerto, waxaana suuragal ah in falcelina ay Iiraaniyiintu qaadaan. afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Baqar Ghalibaf ayaa sheegay Iiraan inayn marnaba dagaal doonayn, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday shacabka Iiraan weligood si cadaalad darra isma dhiibi doonaan. wuxuuna intaas ku daray hore ayuu ugu cadeeyey madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka mar ay wadaxaajood ku wada jireen in Iiraan aynan marnaba aaminaynin haba yaraatee waddanka Mareykanka. wuxuuna ku nuuxnuuxsaday cid walba waxaa waajiba inay ogaato in colaadan aynan ku dhammaan doonin Iiraan oo isdhiibta. wuxuuna tilmaamay waddanka Iiraan inuu diyaar u yahay in si xoog leh uu isu difaaco haddii dowladda Mareykanka ay xadgudub ku samayso isfahamkii la gaaray. saraakiisha Mareykanka ayaa ugu baaqaya waddanka Iiraan in ay ogolaadaan in dib loo furo marinka Hormuuz si maraakiibta ay u maraan, isla markaana ay Iiraan ka go'naato inay joojiso weerarada ay maraakiibta ku qaadayso sida laga soo xigtay wargeyska afka dheer ee Mareykanka ka soo baxay The New York Times. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegaya in Iiraan laga yaabo inay soo saari doonto fariin ama bayaan rasmi ah oo lagu xaqiijinayo in dib loo furay marinka Hormuuz, laguna cadeynayo inaan la joojin doonin maraakiibta halkaasi maraysa waddaasi istiraatiijiga ah. sidoo kale saraakiishu waxay ka digeen hadday ku guuldareysato Iiraan inay sidaa yeesho in cawaaqib xun uu ka dhalan karo aan u wanaagsanayn waddanka Iiraan sida wargeyska hadalka u dhigayo. Iiraan isla markiiba kama ayna jawaabin wararka ka soo baxaya waddanka Mareykanka. marinka Hormuuzna waxa uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee saliidu marto, amnigiisana waxaad moodaa inuu walwal weyn ku hayo sida hadalka loo dhigay beesha caalamka. maamulka Trump ayaa aaminsan in heshiis nuclear laga gaaro Iiraan lala gaaro in ay suuragal tahay, lana aqoonsado in Iiraan ay howlaheeda ku sinto nuclear nabad ah sida uu qorayo wargeyska la yiraahdo The Wall Street Journal. mas-uuliyiin sare oo Iiraan oo Mareykan ah ayaa hoosta ka xariiqay sida laga soo xiganayo Washington Post wargeyska la yiraahdo Iiraan inay ku guuldareysatay inay xushmayso heshiiskii hordhaca ahaa ee Mareykanka la gaartay, iyada oo aanan rajo u reebin in heshiiskaasi uu meel mar noqon karo. madaxweynaha Mareykankana waxa uu dhowaan sheegay ma ogi buu yiri haddii heshiiskani uu noqon doono mid shaqeeya. saraakiisha ayaa sidoo kale digniin ka bixinaya inaynan jiri doonin heshiis laga gaaro barnaamijka nuclearka waddanka Iiraan haddii Iiraan ay ku guuldareysato inay soo wareejiso agabkeeda ay tayagelisay nuclearka dhulka hoostiisa ku aasan, Mareykankan usoo wareejiso. hasaatee intaas waxaa lagu daray Mareykanku in uu qaadi doono tallaabooyin militari oo aan kharash badan ku bixin oo looga hor istaagayo Iiraan in ay agabkaasi isticmaasho. wararka caalamkana waxaa ka mid ah daadad iyo dhulka oo burduma ayaa dhowrkii maalmood ugu dambeeyey ku dilay 44 qof koonfurta bari ee Bangladesh, iyadoo roobab mihigaan oo ku imaan suunka ay halkaasi ka daayaan. 1 milyan oo qof ayaa xaniban sida xukuumadda ay sheegayso deegaanada uu roobku afeeyey. hay-adda maareysa masiibooyinka ama wasaaradda maareysa masiibooyinka ayaa sheegtay in daadadkaasi ay 7 degmo ay saameyn ku yeesheen oo ku yaala waddanka Bangladesh, noloshii caadiga ah ay carqaladeeyeen dad badanna iyo qoysas badanna inay go'doonsan yihiin. sidoo kale dad ka badan ama ku dhow 250,000 oo qof ayaa dhibaatadaasi saameysay. waxaad mahadsan tahay, daawadayaashuna way mahadsan yihiin. daawadayaal waxaan u gudbaynaa goordhow falanqaynta wararka iyo wixii warar degdeg ah ee soo dhaca, ha yeeshee aynu ku hakanoo qadar xayeysiina. ku soo dhowow macadka barashada diinta islaamka ee marso waa muhiim aqoontu diintaana ugu mudan iyo mufti inaad ahaatee maru kaalay
macadka marso barbaarinta wanaagsani waa adigoo ilmahaaga bara diinta islaamka oo uu ugu weyn yahay qur-aanka kariimka macadka barashada diinta iyo culumta islaamiga ah ee marso waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka hikaada carabiga tajwiidka iyo toosinta qur-aanka afka soomaaliga iyo ducooyinka waxaana kugu diyaara macallimiin khibrad fiican waxaadna helaysaa 7 tijaabo ah oo lacag la'aan ah iyadoo ardayga la siinayo shahaado marka uu dhammeeyo isqoristu waa ay socotaa waxaadna faahfaahinta ka badan ka heli kartaa telefoonnada shaashadda saaran adigoo la xidhiidha Somali Meat Company hilib saafiyo suganoo la hubo waa Somali Meat Company Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya waxaana ay ku hawlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyey soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela warshadda hilibka looda warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafa bixinta hilibka waxaana ka hawlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyey soona maray baaritaanno caafimaad Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika khaliijka dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida xalaal certificate iyo ISO certificate shirkaddu waxay muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa وهجاج محمد أن كبلونا أرمهان إمك الصعدة حاردهن سكر لمرين كرموس كسكر ليه وحق برضه أي كله هذا هاي وح صباح يا ورر شيء جيا إن دللا أي الصعدان مثل مركزنا ودك عمان الشيء ينو كوسو جاي هاي وزيرك أرمها دبدع ودك إيران عباس عراقجي صورة قل أي تهوفدي مريكان هالكاس إنه تجان أرمها اللي جوده هاللينا waxaa waqti yar ka dhameeya xilliga Trump uu qabtay Iran oo ku yiri waa inay warqad ku qortaa in maranka Hormuz aysan mardaba weerari doonin maraakiibta si hadalka u dhigay arintan Iran ka suurtageli kartaa maxay se uga macno tahay gacan ku haynta maranka Hormuz Iran dhanka Iiraaniyiinta hadaynu ka eegno xagga khibrada Mustafa Khosh Hashim oo macalinka jaamacad Tehran ku taala ayaa waxa uu sheegayaa Iran wax ay ka faa'iideyso lama arko inay ka qayb qaadato wada hadallada Mareykanka la geliyo hasa ahaatee taa cagsigeeda khasaaro badan ayaa ugu jira inay wada hadal gashaba Hashim ayaa hoosta ka xariiqaya in la xiro marinka Hormuz isla markaasna dagaal u dhacay shidaalkii caalamkana uu kor u kacay ayaa waxay ka dhigaysaa Iran inay hub ahaan u isticmaalayso Mareykan cadaadiska ayay ku kordhinaysaa madaxweyne Trump wadanka gudihiisa Mareykanka haddii uu ku guuldareysto horena uu guuldareystay inuu dib u furo marinka Hormuz awood military asagoo kaashanaya taana macnaheedu waxay noqonaysaa Iran in oo ah dal aad u ballaaran waxay qaaday tillaabooyin waaweyn oo culus oo go'doominta lagu sameeyay ay meelo kale wax ka keensan karto ay ka mid tahay xuduudyada dhulka ay wadamada dariska la leedahay lafagurahani oo Iiraani ah aqoon-yahana ah ayaa ku doodaya marinka Hormuz waxaa si qumaati ah gacanta ugu haysay muddo quruuna welina ku haysa wadanka Iran ilaa iyo wadankani Iran inta uu aasmayba mana jiri doonto buu leeyahay si Iran dagaalka kadib ama dadka Iiraaniyiinta ay ugu dulqaataan in ay marinka Hormuz ka takhalusaan ama ka tanaasulaan arrin dhacaysa ma aha wada hadalladana qayb kama aha mana ka noqonayso ilaa ay dowladda Mareykanku ay marinka Hormuz warkiisa ka harto mooyaane waa sida khabiirkaasi uu hadalka u dhigay waa gartay warkan ah in Trump uu Iran u qabtay waqti kooban oo uu leeyahay warqad ha qorto arrinkaasi Iiraaniyiinta mid ka suurtagelaya ma yahay madaxweynaha Mareykanka waxa la leeyahay waxa uu Iran ka sheego waa wax asaga ku kooban Iran waxa loo qabanayaa waxa ay ayada jeediso iyo waxa ay ayada sheegto madaxweynaha Mareykanka waa jeclaan lahaa Iran inay is dhiibto inay warqad qorto inay hanjabaadiisa yeesho laakiin dadka la fagura arrimaha caalamka kulli waxay isku raacsan yihiin cidda tanaasulka sameyn doonta marka ugu dambaysa inuu madaxweynaha Mareykanka noqonayo Iran qodobadii 14 ee lagu heshiiyey khabiirada Mareykanka ayaa ku fasiray inay ahayd warqad isdhiibida oo Mareykanku saxay haddana la xumaatay wuxuu damcay inuu khiyaano isku dayo oo qodobkii shanaad uu xadgudub ku sameeyo wadayqa yar wadanka Cumaan agtiisa samaysto oo ay maraakiibtu marto laakiin waa socon weysa arrintaasi sidoo kale khiyaano kale ayuu wuxuu sameeyay
qodobka koowaad arrin ku jirta oo Lubnaan inaan la weerarin waxa uu heshiisiyey dowlad wadanka Mareykanka u dhow wadanka Lubnaan iyo Israa'iil kulan uu Washington ku qabtay ilaa ay haddana heshiiskaasi waa shaqayn laayahay waxaana muuqata in labadii qodob uu Mareykanku labadii howlood uu Mareykanku qabtay intii wada hadal lagu jiray labadaba inay ku fariisteen ama ay uu ku fashilmay haddana waxaan uu madaxweynaha Mareykanka sheegay asaga ay ku kooban tahay dhinaca kale afhayeenka guddiga wada xaajoodka wadanka Iiraan afhayeenka baarlamaanka wadanka Iiraan si buuxda ayuu sheegay inuu madaxweyne ku-xigeenka markii wada xaajoodka lagu jiray saacad uu sheegay Mareykanka in Iiraan ay aaminaynin waxa uu sheegana waxba ka soo qaadaynin itus iyo itaabsi waxa la Iiraan taqaana waxa ka sokeeya waxa weeye Iiraan xaalad dagaal ay ku jirtaa diyaar garowgeedana waa sii soconaya وهجاج وكسر عندنا فلقين تا بلاين أجن وركه هذا صار عي قدام بيا ذلك لبنان وحال الشيء يا إسرائيل إنه يجرد ويتو ورا يكون قاعدي مجرد اللي هذا المنصوري أو هوستكتا دجمدا سور وكنت على كونفورتا ودك لبنان لما سوي شيء إلا يهدا أرنتن وردا وحكذا الشيء طبعا وحي كسر كرنا أنت إنه برنامج كوجرنا أما برنامج ده قدام بيا يعني كوجسوا قد بنتورنا واي dhinaca kale hadaynu ka eegno maxamed wada xaajoodadan Iiraanintu sidee bay u arkaan imika socda su'aashaas waa su'aal aad xasaasi ah Mareykanka ayaa waxa uu isku dayayaa inuu sii wado diblomaasiyad jajub ku dhisan inuu Iiraan la galo Iiraanna waxa ma qorto waxa uu rabaa diblomaasiyad qasab ah waxaan hadaa yeeli weydo wixii uu wadi jiray dagaalka 40 maalmood ka hor Iiraanna waxa waa ka dhirtay sidoo hadalka u dhigayo Professor Hakimeh Sagaye Birai oo ka tirsan jaamacadaha wadanka Iiraan waxa uu u sameeyaa tanaasulaad yar ah oo ay ka mid tahay in beesha caalamka ku soo biirto iyo xiriir dhaqaale in loola yeesho waa gabar weeye gabadhaana waxay leedahay arintaas Iiraan uma cuntanto Iiraan waxay isku dayaysaa in siyaasaddan Mareykanka ah ee 47 sano soo socotay inay meel uga soo harto diblomaasiyaddan Mareykanka uu wato handidaada ku dhisan Iiraan waa diiday inay ogolaato iyo tanaasulaadka uu sameeyo marna ka noqonayo oo uu soo saaray warqad shidaal looga gato iyo la diido Iiraan waxa ay dowladda Mareykanku u aragtaa inay arrintan inay soo afjarto ay ka go'an tahay waxayna hoosta ka xariiqaysaa marka taariikh ahaan la fiiriyo 25 sano ugu dambeysay Iiraan ma halmaami karto Mareykanku waxa uu sameeyay Iiraanna lama dhacsana dowladda Mareykanka waxa ay sheegayso waxayna ku tilmaamaysaa in aan dowladda Mareykanka la aamini karin waa gartay waayo maxamed dhinaca kale aynu ka eegno arrimaha imika soo baxaya waxa wararka kamid ah in la leeyahay wasidalka loo dhigay heshiiskii la gaaray ama isafgaradkii la gaaray in qolaba Iiraaniyiinta iyo Mareykanku ay dhinac u fasiranayaan arrintaas maxaa laga leeyahay sida uu hadalka u dhigayo Nicholas Houghton oo hore u ahaan jiray safiirkii Mareykanka u fadhiyay Britain u fadhiyay Qatar isla markaana marna safiir oga ahaa wadanka Britain Iiraan ayaa sheegaya in qodobada ku qoran heshiiska isafgaradka ku meel gaarka ah Mareykanka iyo Iiraan ay wasaxeen in dhinac walba uu sidoo rabo u fasiranayo taasna ay qayb ka noqotay in dagaal la isku noqdo u dhaco dokumentiga intiisa badan waxaa lagu soo afjarayay dagaalka laakiin waxaa ku qoran erayo aanan sugnayn macnahooda cid walbana isku dayayso inay macno ayada leedahay siiso si kala duwan ayay uga fasiranayaan Mareykanka iyo Iiraan waxaana hubaala 14 qodob isafgaradkaasi ku yaala in uu ahaa tilaabo fiican oo dagaalka lagu soo afjaray wuxuuna sheegay dowladda Mareykanka iyo Iiraan gaar ahaan waxyaabaha isku haystaan waxaa kamid ah qodobka 5 isafgaradkaasi oo
إيران أي دينا مثلا وترجمنا مريكان كان أوروا إنه وضيقة كلا كأكفر عمان أكبرت إيران أي لا داعي مرين كورموز ورن أنا قاعد وضيقة إيران waxay ku adkaysanaysaa ayada kulli xukunta marin hormuuz maraakiibta maraysana waxa loo baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan haday rabaan inay maraan hadii kala mari maayaan labada dhinac waxa cad inay aad ugu hordoon yihiin arrintan sida khabiirka hadalku dhigayo sababtaas ayaan keenaysa dagaalkaas ku dhacay todobaadkan dhacay sababtaasna ayaa ugu wacan in xiisadda cirka isku sii shareerto umana muuqato in dagaal weyn lagu noqon doono arrintaas ayuu wuxuu ku sheegay inay tahay waxa kaliya iyo diilada ah waxa kale oo intaas ku daray Iran iyo Mareykanka iskaafrad ay gaareen wali waxa loo tixgelinayaa inuu yahay horumar weyn oo hoos loogu diray loogu dhigay khilaafkii dheeraa ee balaarnaa ee labada dhinac ka dhaxeeyay in wax badan lagu dhimay haddana ay ka taagan tahay sidii wax loo turjumi lahaa waa gartay waa hagaag maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka caawa daawada si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo beer aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadiino Imara Luxury Homes Imara ya Imara baladuunkani faa'iido dhismahan ashqaraarka aadka loo cajabayo dabaqan ila eega indhuhu ay ka helayaan ilbaxnimaha labuur iyo waa magaalo ifayso Imara ay naqshadaysay shirkadda dhismaha guryaha ee Imara oo aad uga barateen amaano iyo adeeg hufan waxay hadda gacanta ku haysaa dhismayaal casri ah oo si tayo sare leh loo dhisay alaabta lagu dhisay waxa laga keenay Turkiga waxaana dhisaysa shirkad Turki ah dhismayaasha cusub waxa ay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi guryo dublekisa iyo kuwa penthouse ah guri kastaana waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waa guryo waasac lehna adeegyadii oo dhan oo si casri ah loo dhisay sida jiimka oo rag iyo dumar ah swimming pool rag iyo dumar bale supermarket cafeteria CCTV motor u gaar dhismo kasta ceelbiyood madrasadii quraanka masaajid iyo meelaha carruurtu ku ciyaarto oo aad looga shaqeeyay iyo waliba qaybta kliniga ama caafimaadka ee xaafadda dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxa uu marayaa dabaqii 7 waxa uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road wixii faahfaahin waxaad kala xiriirtaa telefoonada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees